weli adigoo diyaarad dusheeda saaran amay dhacday xaalad halis ah sida inuu hallaabo mid ka mida matoorada diyaaradda ama xitaa ay jireen dabaylo aad u daran kuwaasi oo cimilada ka yeelaya midaan xasiloonayn ama xitaa jawi kale oon ku wacnayn in diyaarad lagu duuliyo runtii waan ogahay haddii xaaladdaa dhici lahayd murug fara badan baa kula soo gudboonaan lahayd balse ka waran murugta haysa duuliyaha diyaaradda wada in badan oo duuliyayaasha ka mid ah waa dad xariifiin ah oo aqoon baahsan u leh duulinta diyaaradda iyo dejinteedaba haddaba halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa 10 xaalad oo ay diyaarada degeen welibana ay u degeen xaalad laga fursan waayay yacni aysan u suurto gelin inay diyaaradahaasi sii duulaan bal haddaba nala arag 10kan xaaladood ee la yaabka leh nambarka 1 ku dejintii webiga Henson xaaladdu waxa ay ahayd mid degan balse mararka qaar shimbiruhu waxay sabab u noqon karaan shil dhanka hawada ah diyaaradan oo rakaab ka soo qaaday wadanka Mareykanka ayaa intii ay hawada ku jirtay waxa ka hor yimid jamaaco ama group badan oo shimbiro ah kadibna markii la isjeeray midaasi waxa ay sababtay in labada matoor ee diyaaraduba eber noqdaan duuliyuhuna qolada controlka ayuu la xiriiray balse ilbiriqsiya kadib waxa uu ogaaday diyaaraddu inaysan sii duuli karin sidaa darteed waxa uu si degdeg ah ugu dul dejiyay webiga Henson balse nasiib wanaag dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa cidna dhibaato may gaarin oo iyagoo caafimaad qaba oo nool ayaa dhammaan laga soo saaray diyaaradda taana waxay ku dhacday fadliga Ilaahay kadibna dadaalka duuliyahaasi aadka u caqliga badan nambarka 2 diyaaradii bilaa saqafka noqotay in badan waxaan jecelnahay inaan aadno meelaha lagu ciyaaro meelaha lagu madadaalo ee laga helo maaweelooyinka iyo sheekooyinka kala duwan rakaabka diyaaradan oo tiradoodu gaaraysay 737 qof ayaa waxaa loo dhibaato geliyay oo qasab ku noqotay in masaafo gaaraysa 3,000 mitir diyaaradda si degdeg ah looga soo dejiyo sababtuna waxay ahayd diyaaradda ayaa bilaa saqaf noqotay oo saqafka kore ayaa fuqay dabaylaha ayaa dadka wajiyadooda garaacayay qabowguna wuxuu ahaa mid aad u daran sidoo kale degdeg ay diyaaraddu ku duulisay waxa uu gaarayay 330 mayl saacadiiba safarkan ayaa waxa uu ahaa mid kooban iyadoona rakaabka laga wadayay magaalo loona wadayay magaalo kale waxaana la go'aamiyay in safarkan uu ku idlaan doono muddo 35 daqiiqo ah laakiin wixii dhacay daqiiqadii 23aad waxay ahaayeen wax la yaab leh wax badan baa isbedelay sababtoo ah diyaaradii saqafkii kore ayaa ka fuqay dadkii rakaabka ahaana waxayba is arkeen iyagoo ka taagan heerkul aad u qabow balse duuliyihii ama kabtankii diyaaradda si degdeg ah ayuu diyaaradda ku dejiyay wuxuuna diyaaraddii ku dejiyay dhul cagaar ah iyadoona qofna ay waxba noqon dhibaatana aysan soo gaarin nambarka 4 diyaaraddii bilaa afka ahayd tani waa qiso ku saabsan halyeeye aan caadi ahayn qisaduna waxay dhacday 17kii bishii Julaay sanadkii 2000 waxa uu suurta gashay duuliyahan u dhashay wadanka Ukraine ee lagu magacaabo Alexander inuu diyaaradda si degdeg ah oo aad u cajiib ugu soo dejiyo garoonka magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga diyaaradan ayaa Istanbul ilaa Qobrus waxay ku duuleysay joog gaaraya 4,000 feet markii qayb barafa ee afka hore ee diyaaradda jabisay sidoo kalena daaqadii dhalada ahayd ee diyaaraduna jabtay sidaa darteed duuliyuhu waxa uu go'aan ku qaatay inuu u noqdo magaalada Istanbul si uu u badbaadiyo nolosha 140 rakaabka ah oo saarnaa diyaaradda inkastoo dhalada daaqadiisu jabtay haddana si ammaan ah ayuu diyaaraddii ku dejiyay midaana wuxuu ku muujiyay xirfadaadu ballaaran oo uu leeyahay dhanka duul nambarka 5 duuliyihii bannaanka u soo baxay waxa arrin aad u adag ah in uu qof koro saqafka kore ee diyaaradda laakiin taamicnaheedu ma ahan inaan la heli karin dad nooca ah sanadkii 1990kii diyaaradan ayaa waxay ka duushay Ingiriiska waxayna u socotay dalka Spain sareynta jooga diyaaraduna waxa uu ahaa 16,400 feet iyadoo xaaladdu sidaa tahay ayaa duuliyahan miraayada daaqadiisu jabtay kadibna cadaadiskii gudaha diyaaradda ayaa bannaanka u baxay iyadoona duuliyuhu ku dhagnaa qayb kore oo ka mid ah diyaaradda halka qaybtiisa kore ay bannaanka jirtay qaybtiisa hoosena ay diyaaradda ku guda jirtay asxaabtiisu waxa ay isku dayayeen inay gudaha soo geliyaan balse duuliyaha kale ee kaalmaynaya ayaa isna wuxuu ku guda jiray in uu diyaaradda si degdeg ah ku dejiyo garoonkii ugu dhawaa ayuuna ku dejiyay weliba si aamin ah balse duuliyihii qaybtiisa sare bannaanka ula soo baxay isagoo nabad qaba ayuu diyaaradda ka soo degay inkastoo intii hawada lagu jiray uu barafoobay aadna uu qaboobay sidoo kalena uu ka sheeganayay xanuun ka haya labada gacmood shaqadiisana si toos ayuu ugu soo laabtay 5 bilood kadib oo uu ku maqnaa xaalado dhanka caafimaadka ah markii baaritaan la sameeyayna waxaa la ogaaday in qaladku ka yimid mid ka mid ah shaqaalaha dhanka makaanikada diyaaradda oo mismaaraan munaasab ahayn ku xiray daaqadda sidaas darteedna cadaadis badan oo ku dhacay daaqadda ayaa waxa ay sababtay inay jabto oo markaana diyaaradda ay la soo gudboonaatay nambarka 6 daruurtii qiiqa ahayd
diyaaradan ayaa waxay ku socotay safar dheer iyadoona ka soo baxday London una socotay New Zealand waxayna diyaaraddu ku degtay Kuala Lumpur si ay nasasho ugu qaataan kadibna safarkooda u sii wataan balse muddo kadib markay duulitaankooda sii bilaabeen musiibo ayaa waxay ka dhex dhacday diyaaradda arrinta dhacda waxay ahayd in gudaha diyaaradda oo idil isku bedelo qiiq waxaa shaqadii si kaamil ah u joojiyay labadii matoor ee diyaaradda kabtankii diyaaradda ayaana loo dhibaato geliyay oo ay degdeg ku noqoto inuu diyaaradda dejiyo halkii ugu munaasabsanaydna waxay noqotay meel barxada oo lagu qabto tartanka gawaarida markii uu diyaaradda dejin rabayna waxaa damay dhammaan nalalkii diyaaradda ee kala duwanaa midaasina arrinta ayay sii qastay balse kabtankii diyaaraddu waa uu dejiyey weliba si ammaana iyadoona qof aysan dhibaato soo gaarin nambarka 8 meelun ka mid ah Siberia 10kii bishii Sebtembar sanadkii 2010 diyaarad laga leeyahay wadanka Ruushka ayaa waxay ku degtay meel ka mid ah Siberia arinta dhacda waxay ahayd in duuliyaha iyo ninka kaalmeynayaba ay diyaaradii xakameyn waayaan kontaroolkeedana dhumiyaan kaliya qaabka lagu xakameyn karo lagu sii kaxayn karo muddo 30 daqiiqana waxay noqotay qaab mekaaniki ah iyadoona ugu dambeyn ay u suura gashay in ay diyaaradda ku dejiyaan meel kayn ah gaar ahaan waddo weyn oo dhex maraysay keenta balse waxay xakameyn waayeen diyaaradda iyadoona sii jibaaxday oo ku sii taraaraxday geeda aad u fara badan kadibna taasi waxa ay sababtay in ay diyaaraddu burburto laakiin dhammaan dadkii gudaheeda ku jiray si aamina ayaa looga soo saaray nambarka 10 dabaylihii kaba soo qaad adiga oo duuliye ah diyaaradaadana si nabada ugu duulinaya hawada ayaa waxa kula soo gudboonaatay xaalad halis ah midaas oo qusaysa dhanka dabaylaha arrintan waa mid ku dhacday diyaaradii u sii jeeday ama u socotay Hamburg kabtankii diyaaradda ayaa waxa waajib ku noqotay inuu diyaaradda dejiyo inkastoo jireen cawaasif iyo dabaylo aad u daran oo xitaa waxyaabaha qaar ee ka horeeya ayuusan arki karin balse kabtanka oo ahaa nin aad u caqli badan ayaa diyaaradii waxa uu dejiyay si ammaan ah inkastoo garabyada diyaaradda qaybo kamid ah ay halaabeen oo ay markaa kadib shaqadii ay gabeen